الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan ka hadli doonaa tensiga lixaad oo ah past continuous tense. Past continuous tense is used for an action. Past continuous tense waxaa loo isticmaalaa fal which kaasoo was happening dhacay in the past time waqti la soo dhaafay. Past continuous tense waxaa loo isticmaalaa fal which was happening kaasoo dhacay in the past time waxa la soo dhaafay. Mostly tense waxaa loo isticmaalaa marka ka sheekeynaysid oo kale sheeko ku qabsatay ama kugu soo dhacday waqti la soo dhaafay. tusaale waxa ahaan jiray saas, waxa ahaan jiray sidaas, waxa soo sameeyay waxa saas, tusaale sidaas oo kale. Okay, formula qaacidadiisa waxa waaye past continuous tense subject plus verb to be was or were plus verb plus ing plus object. Okay, tusaale examples. Example intaan gelin past continuous tense I and he, she, it waxaa loo isticmaalaa was waxay qaadanayaan I, he, she, it. afartan meesha ku aragtid markii la joogo past continuous tense waxay qaadanayaan was. We, you, they saddexdan meesha ku aragtid waxay qaadanayaan were markii la joogo past continuous tense. Okay, tusaalahan sii galno examples. And I was writing letters. I was writing letters. Idara lahada waan hadabsanahay marka. Okay, I was writing waxaan qorayay letters warqado. I was writing letters waxaan qorayay warqado. waa wax la soo dhaafay past ah, macnaha warqadaha waxaa qoraysay waqti la soo dhaafay. I was subjectihi was waa verb to be writing waa verbkii oo la raacsiiyey ing. Letters waa objectihi. And we were playing football. We were playing football waxaanu ciyaaraynay kubadda cagta waa wax la soo dhaafay ama banooniga. We anaga were playing waxaanu ciyaaraynay football kubadda cagta. We waa subjectihi, were waa verb to be playing waa verbkii oo raacsiiyey ing verb plus ing. Football waa objectihi. Okay, she was preparing her lessons. Sorry, inta waxaa ku jirto her. She was preparing her lessons. ayada waxay diyaarsanaysay casharadeeda. She was preparing her lessons. She was preparing her lessons. waxay diyaarsanaysay ayada casharadeeda waa wax la soo dhaafay, macnaha casharada waxay diyaarsanaysay waa wax la soo dhaafay pastiga macnaha. Okay, aragna markii laga dhigayo questions. Markii laga dhigayo waxaa waaye verb to be ga la soo hormarsiinaa was inta la keenay. Okay, waa la fahamsay nusr inta badan because waxaan ku soo sharaxnay casharadii ka horeeyay. had sharaxaad badan uma baahno. Okay, was I writing letters? Was I writing letters? warqado miyaan qorayay? Were we playing football? kubadda cagta miyaan ciyaaraynay? Was she preparing her lessons? Was she preparing her lessons? casharadeeda miyay diyaarsanaysay? Was she preparing her lessons? casharadeeda miyay diyaarsanaysay? Okay, waa markii laga dhigayo questions. I hope in la fahmay. Okay, aragna markii laga dhigayo negative diino. Negative markii laga dhigayo waxaan leenahay waxaa lagu soo daraya keliya not. Verb to be ga waxaa laga hormarsiinayaa not oo negative ah. I was not writing letters. ma aanan qoraynin aniga casharo ma aanan qoraynin. Sorry, warqado ma aanan qoraynin. I was not writing letters. warqado ma aanan qoraynin. We were not playing football. kubadda cagta ma aanan ciyaaraynin. Okay, she was not preparing her lessons. ayada casharadeeda ma aanan diyaarsanaynin. She was not preparing her lessons. She was not preparing her lessons. casharadeeda ma aanan diyaarsanaynin. sidaan hore soo sheegnay waxaa loo isticmaalaa past continuous tense. haddaa xoogaa yar aan ku celiyo waxaa loo isticmaalaa fal which was happening in the past time kaasoo dhacay waqti la soo dhaafay. marka
tensiga dii uu yahay past continuous tense maxaa caddaynaya qaacidada was iyo were I hope in la fahmay maanta cashirkeena inta ayuu egayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ilowin janaalka inaad subscribe geliso. Okay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. La socod casharada soo socda insha Allah.